wuxuu u baxay magaalo balqa la yidhaahdo waa mantiqa wacar bay yidhaahdaan aad u dhagax badan buuraleeya farduhu aanay fududayn inay si fiican uga dagaalgeli karaan ciidanka farda aad u dheereeyo fudud oo bila kooraha lagu fuulo oo dagaalyahanaabu wataa Jenkins Khan iyo ciidamadiisu markaa dhul aan farduhu ku fiicnayn ayay u degeen dagaal baa meeshii ka dhacay ciidankii muslimiinta iyo ciidankii uu Jenkins Khan watay isaga ka socday ayaa ishaleelay muslimiintu waxay galeen dagaal mintidnimo ah oo ay arkayaan inaan waxba u hadhin idan xamaasada ay muslimiintu xamaasadoodeen markay arkeen inay isku soo urureen manطقada ay ku dagaalamayeen oo dhul istaraatiiji ahayd tirada oo marka kan aad u badan ninkan ciidanka watay Sayfuddin Baghraq oo kalsooni dadka ku abuuray ciidankiisa militariga wato ciidan khatar ah iyo ninkii marka kan wadanka qaybtiisa oo hadhay madaxweynaha ka ahaa oo go'aansaday inuu dagaal galo oo isna safka ku jira boqoradii hore way yaaceen laakiin ninkan waa nin madax oo raba inuu dagaalka galo oo isna safka koowaad ku jira arrimahaas oo la isku daray waxay keensatay inay muslimiinta niyadu u dhisanto oo ay garan karaan inay wax iska dhiciyaan muddo markii la isjafayay dagaalku socday ayaa dagaalku adkaaday maalintii koowaad waa la isku madhay waa la isku gobol dhacsaday maalin labaadii baa la isgalay waa la isku madhay waa la isku gobol dhacsaday maalin saddexaadii baa la isgalay waa la isku madhay kadib baa ilaahay u jabiyey nimankii gaaleen saddex maalmood markii la ishayay kadib ayay gacanta sare yeesheen kooxdii muslimiinta ahayd waa awal marra markaa taariikhdii tataaree hore ee koowaadee la hayo la jabiyo dilkii baa ku tiro batay baaqigoodii baa kala firdhaday meel kasta waa loo caymadiyey Jenkins Khan oo magaaladii Talqaan jooga ayaa warku gaadhay la odhanayo ciidankaagii waa lagu hurgufay idinkama noola runtii waxaa muuqday barakatul ijtimaac dadka muslimiinta hadday isu tagaan iyagu isnabadgeliyaan oo ay dagaal wada galaan inay jabaynin waxaa kor noqday macnawiyaadkii muslimiinta oo jeeshka tataarka lama jabiyadii baa been noqotay ninkii la odhan jiray Jalaaluddin ibnu Muhammad ibnu Khwarizm Shah boqorkan koonfureed ee odaygii hore dhalay kalsoona u gashay ciidankiisii oo wuxuu arkay rag wax iska dhicin kara raggu maanta wataa inay yihiin kadib Jenkins Khan buu waraaq u diray oo yidhi ma kugu hadhay dagaal baan diyaar u ahay haddii war hadhay waa dagaal Jenkins Khan ciidan dambuu soo ururiyey waa soo dagaal tegey mar labaad baa goobta Kabul hadda la yidhaahdaa la isku haleelay caasimadan hadda Afghanistan ee Kabul la yidhaahdo ayaa dagaal labaad la isku haleelay dagaal adag buu noqday oo meesha ka dhacay muddo markii la ishayeyna dagaal ka xoog badan bay yidhaahdaan kii Ghazna balq agteeda meeshii reeda ka dhacay dagaal ka xoog badan buu noqday kan Afghanistan caasimadeedii ka dhacay Kabul mar labaad waa ku cabeen nimankii tataarka ahaa waana ka xoog badiyeen waxay noqotay tataarkii in mar dambe la jabiyo laakiin mushkilad cusub baa soo ifbaxday waxaa soo baxay tataarkii waxaa laga helay khaniimo hayru caadiya waayo wixii dhul muslim lahaay oo dhan dee waa kuwii soo guray Bukhaara Samarqand Naysabur Marwa Haraat Balq wixii magaalaba jirtay Talqaan waa kuwii soo gurtay ciidamadani waxay ku raraayeen xoolo aad u tiro badan leh markii la jabiyeyna waxaa laga qabsaday xoolo aad u tiro badan leh ciidankii Jalaaluddin watay xoolihii baa la isku qabtay Sayfuddin Baghraq iyo ciidankiisii waxay yidhaahdeen dee dagaalka waanu ka qayb gallay si fiicanna waa u dagaalanay xoolaha badhkaygaana la siiyo Malik Khaankii Haraat ka soo cararay isna dagaalka ka qayb galay isna wuxuu yidhi xoolaha badhkaygaa la siiyo muslimiinta dhexdoodii waaba la murmurmay murankii baa adkaaday dagaal baaba dhacay dhexdoodii baaba la iska dilay Sayfuddin Baghraq nimay walaaliyiin oo ciidamada raggii hogaaminayay baa kow lagaga siiyey muslimiintii waxbaa ku kala dhintay markay halkaa marayso ayuu Sayfuddin
ciidankiisii soddonka kun ahee dagaalyahankii u watay ayuu kaxaystay goobtiina uu iskaga tegey waxa soo baxday fikraddii ah in dadku ciidanka hunguriga isku dilo tuu nebi moxamed laa calayhi salaatu wasalaam fawallahi ma alfaqra akhshaa calaykum ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu leeyay faqri idinka biqi maayo waxaanse idinka baqaa waa xoolo inaa xoolo heshaan oo aad dabeetana ku loolantaan siday kuwii hore ugu loolaalameen oo dabeetana ku halaagsantaan siday kuwii hore ugu halaagsameen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolihii la ysku qabtay waxaan is leeyahay yurub maanta way islaami lahayd haddaan muslimiinta xoola isku qaban dagaalkii ugu dambeeyey muslimka lagu jebiyo ee ghazawaadkii muslimiinta ee Spain ka soo kacay France gudaheeda Lyon dacalkeeda laga jebiyey balaat shuhadaa sababtiisu maxay ahayd iyagoo ku cabay gaaladii oo ka xoog badiyey oo garoonka haysta ayuunbaa qayla yeedhay odhanaysa khariimooyin ay siteen oo ay gaalo hore ka soo furteen oo xagga dambe taallay gaaladii xagga dambe ka wareegto khariimadii baa la gurtay ciidankiiba intuu ka baxay safkii koowaad ee dagaalka ku jiray buu dib u noqday ilaa iyaga aakhirkii la tirtiray haniimay ku jabeen balaat shuhadaa faransiiska gudihiisa muslimiinta jabkoodii koowaad ee dib loo celiyaaba haniimu ku jabay cabdiraxmaan ninkii la odhan jiray ciidanku hogaaminayay kan haniimay ku jabeen haniimadii baa la ysku qabtay waxaa dhacay sayfaddiin ciidankiisii inuu iskala baxay jalaaladiin wuxuu isku dayey inuu qanciyo in badan buu ka daba tegey in badan buu isticdaafsaday in badan buu bariyey laakiin ninkan walaalkii la dilay waaba u qurqursami weyday waxaniba anna madad baan idinku imiyo inaan wax idinka dhiciyo idina walaalkay baa disheen unbuu isa soo taago wax kaleba waa mari waayey wuu iska tegey isaga iyo ciidankiisii markuu ka baxay ciidankii niyad jab baa ku soo kornay iyagii oo isqabqabsaday dagaal dhexdoodii ka dhacay muslimiintii oo badh noqotay may dhicin labadii guulood ee waaweynaayay muslimiintu gaadheen inay midhahooda goostaan ama istithmaar inay ku sameeyaan jenkis khan marka kan ciidankiisii ayuu soo urursaday isagii baa soo duulay awal wuxuu soo dirayay abnaa'uhu baa ciidamadan hogaaminayay hadda ra'su dawla almagoliya ciidan wataa soo socda muslimkiina waxay marayaan maxay inay iyagiis hayaan macrakadii ugu adkaydna way ku soo socotaa safkii muslimiinta khalkhal baa galay jalaaladiin wuxuu go'aansaday inaanu sida tan dagaal ku gelin ciidankiisii buu kaxaystay wuu guuraysnaa jenkis khanna waa ka soo daba guuray waa la isdaba galay arrintii aabbihii ku dhacday oo kala dhacday marka jalaaladiin waa sii guuraa jenkis khanna waa ka daba guuraa laba ciidan oo isdaba socda kaabul baa la iskala yimi ghazana la isla soo dhaafay jalaaludiin jenkis khanna magaalooyinka kuma weecdo ciidanka guuray unbuu ka daba guuraa ninkanna ciidankiisii waa soo waday sidii la isula soo socday afghanistan waa la iskala dhammaaday bakistan baa la isla soo galay bakistan baa la iskala soo dhammaaday sind baa la isla tegey nahru sind webigan bakistan mara ee sind mara ayuu yimi jalaaludiin iyo ciidankiisii wata doonyaba wuu waayey dani kuteh rag inay ishaleeshaan mar haddii doonye la waayo meel u gudba aanay jirin jenkis khanna wakhti iskama lumin tuulana ma furan cidna ma boobin cid kalena ma laynin ciidankan buu ku daba jiraa jenkis khanna waa jalaaludiin meel buu la hadlay ciidamuu dirtay doonyaa loo doonay doonyaha intii loogu maqnaa ayuu jenkis khanna soo gaadhay waxay noqotay in la ysgalo haatan dani waa dagaal ku tehe waa la ysu jilib dhiga maantii koowaad baa la ysgalay waa la ysku madhay maalin labaadii baa la ysgalay waa la ysgumaaday maalin saddexaaddii baa la ysgalay waa la ysxasuuqay lama kala tegin dagaalkii wuu adkaada halkaa markay marayso oo muslimiintiina dad badani ka dhintay gaaladiina dad badani ka dhintay muslimiinta raggii wax hogaaminayay
malik khaankii shalay ay isku hayeen xoolaha doonaya xoolaha halkan buu ku dhintay ma calfan xoolihii lagu kala tegey waxba lagama cunin malik khaan halkaas buu ku baxay maalin afraadii dagaalku wuxuu noqday labadii ciidanba in dhimashadu ku badatay oo la kala yaro gurto oo ballaysu nasto nin waliba wixiisii uu dib isku dayo inuu isu habeeyo hudnada wakhtigii lagu jiro oo labadii ciidan kala yaro daaleen oo guul degdega ninna gaadhi kari waayey oo nin walba dhegta dhiigga loo daray oo nin waliba jaraaxaadkiisii iyo wixiisii uu hagaajisanayo intii taa lagu jiray ayaa doonyihii yimaadeen jalaaladiin ciidankiisii markaa wuu rartay webigu ka tallaabay doonyihiina xagga shisho u kaxeeyey jenkis khaan marka kan ciidankiisii wuxuu ku soo tallaabiyo ma hayo laakiin ma aladii xadath maxaa dhacay marka kan awal dawla alkhawaarzimiya koonfurteeda ninkan iyo ciidamadiisaa joogo muslimiintii xagga hoose joogtay way badbaadiyeen muslimiintii xagga sare jirtay iyaga waa inagii ka soo warrannay warkoodii haatan muslimiintii xagga hoose jirtay ciidamadoodii webiga sand bay ka tallaabeen waxaa isku soo hadhay jenkis khaan iyo ciidankiisii iyo maatadii muslimiinta iyo magaalooyinkii muslimiinta iyo wixii aan ciidan ku dambaynin jenkis khaan marka dib buu soo noqday markuu dib u soo noqdayna wuxuu bilaabay kow magaaladii koowaad ee lagu jebiyey inuu qabto ghazna ghaznuu yimi ghazna wuxuu la simay dhulka wixii dad joogay waa gumaaday wixii daar ku taallay waa dumiyey wax walba waa baabi'iyey ibnulahir raxmatullaahi calayhi markuu tacliiqinaya wuxuu leeyahay wuxuu ka tegey buu yidhi khaawiyatun calaa curuushiha kaan lam tagna bilams weedhaasuu isticmaalaya magaaladaa wuxuu ka baxay jenkis khaan iyadoo dunsan cidna ku noolayn meel la degayba aan u ekayn hore ayuu uga socday meel dhexaba markuu marayo jalaaluddiin ciyaalkiisi iyo reerkiisi iyo guur ayuu hela waa qabtay iyana waa bireeyey boqorkan sind ka tallaabay nahru sind aabbihiiba dee waa tii la qabtay hooyadii iyo ciyaalkiisii beriguu baxsaday kana markuu baxsaday waxaa la qabtay intuu dhalayna dhegtaa dhiigga loo daray iyana waa la bireeyey haddaan iska soo koobo warka waanan waxba akhrinin wixii muslim la laayee dambe jenkis khaan afghanistan oo dhan buu qabsaday afghanistan waa dhulka ugu istaraatiijisan caalamulislaami bay ka mid tahy waa dhul bay yidhaahdaan koreeya buuraleeya ninka qabsadaa jayna uu ku duuli karo indiya uu ku duuli karo ciraaq iyo xagga uu ku duuli karo qawqaas uu ku duuli karo waa eshiya halka laga xukumo bay yidhaahdaan eshiya halkaad ka xukunto haddaad afghanistan qabsato rushiya waa duuli jina waa duuli indiya waa duuli ciraaq iyo iiraan waa duuli dhan kasta waad u duuli kartaa bay dhahaan wuxuu isku hubsaday inuu qabsado meesha afghanistan la yidhaahdo waddanka kani wuxuu ku caan ahaa dad deggan oo dagaalyahana oo caynkana laakiin ciidamadoodii labada goor jebiyey iyana warkoodii waan soo mar jenkis khaan hadda gacantiisa waxa ku jira waddankii la odhan jiray mongolia china kuriya manimar waxaa barigaas oo dhan soo tiri nebal wixii xaggaa lagu sheegi jiro o dhan soo tiri uu soo wada qabsaday kadibna turkmanistan afghanistan iiraan inteeda bari inta ugu badan leh azerbaijan armeniya georgiya intaa hal san uu ku qabta taarikhyahanadu nin meel duulo waa la arko qabsadaa laakiin waddan intaa leeg taariikhda wax hal sano ku qabta ma soo marin horena looma hayo dibna looma hayo intuu dilay taariikhda ma soo marin lama hayo magaalooyinka intuu ku dilay qof wax intuu magaalo qabto intaa ku dila dadku laayay hal sano bini aadam intaasoo dada dila lama hayo walaa second world war
dagaal labaad ee duniyad iyo ku ka horreeya hal sannadood intuu qof ku dilay 617 hijriyada lama hayo sidaa ogeed buu ibnu al-Athir wuxuu odhanayaa waqad jara lihaa'ulaa'i tatar ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه فهذه طائفة تخرج من حدود الصين ولا تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينيا ويجاورون العراق من ناحية همدان وتالله لا أشك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة فإنه سينكرها ويستبعدها ibnu al-Athir wuxuu leeyahay qolada tan waxa uu dhacay buu yidhi waxaan bini aadam hore loogu arag taariikhda horena lagu maqalta dambana lagu arag buu leeyahay lama arag buu yidhi koox yaroo intay China ka soo baxdo hal sano gudaheed ilaa Armenia ku qabsata Bahr al-Aswad iyo agaarkeeda Armenia ka gaadha ilaa iyo Ciraaq inta ka dhexla qabsada lama arag buu yidhi kama shakisni buu yidhi waxaan aan qorayo qofka akhriya aan waqtiga joogina dabadeed yimaada inuu odhan doono buu yidhi war waxaan waa khuraafaad kamaan shakisni buu leeyahay anigu se waan taaganoo waan qoraya kuwa dambe se inaanay rumaysan doonin anigu kama shakisni buu tilmaamaya aan soo koobno waxaa soo galay sanadkii 618 hijriyada tataarkii dib buu soo noqday meesha Azerbaijan la yidhaahdo qabsaday magaalo muslimiintu ay lahaayeen Muraqa la yidhaahdo soo galay taariikhyahanadu waxay yidhaahdeen magaalada tan marka kan gabadh baa ka talinaysay waa muslim gabadh u taliso magaaladaasi gabadhu ka talinaysay buu soo galay dabeetana manjaniiqu waa madaafiicdii waagaa jirtay waa baal lagu guro dhagxanta oo lagu tuuro dabka oo lagu tuuro gaas iyo waxa qarxa inta la isku rido lagu tuuro yacni madfacu intaanu noqon kabaarudu qarxisa waxaan jiray mid farsamo kala qarxiso oo wax tuura marka manjaniiqa ahaan jiray waagaa madaafiicda jirta manjaniiqyadu u dhigtay manjaniiqyada waxa kaloo loo isticmaali jiray axjaarta waaweyn ee derbiyadan qalcadaa lagu duminaya lagu tuuri jiray manjaniiqyuu u xidhay dabeetana waa dumiyey magaaladiina wuu qabsaday bishii safar afarteedii baa la yidhahaa 618 ayuu magaaladaana qabtay caadadii uu lahaa buu mariyey raggiina waa laayay xoolihii iyo wixiina waa qaatay dumarkii iyo carruurtiina waa la faraxumeeyey ibnu al-Athir markuu taariikhdan ka warramayo wuxuu sheegaa wuxuu yidhi dadka warramaa waxay ii sheegeen dadka siday u niyad jabeen buu ka warramaya nin tataari intuu ku soo baxo 100 muslim oo meel fadhiya inuu yidhahdo ha dhaqaaqina iswada taaga oo la iswada taaga buu leeyahy oo midba mar madaxa ka jaro waxay taariikhyahanadu sheegeen buu leeyahy inay gabadhi ku soo baxda rag muslimiin ay tidhaahda istaagtaaga oo iyadu layso dee waa maraykanka aad arkayso in imka laga baqayo istaagtaaga haddii la yidhaahdo waa in la istaagtaaga waxaa dhacay dadka baqihii galay wuxuu gaadhay xad tataarka la yidhaahdo raggoodaaba ka dara dumarkooda say wax u laayaan oo rag iyo dumar iyo wax walba laga boqo tataar sheegta tataarku marka kan iiraan iyo dhulkaa ka soo takhallusiya afghanistan iyo armenia azerbaijan iyo bakistan iyo dhulkaa soo dhaaf turkmanistaanada iyaga hadalkooda daa wuxuu marka kan joogaa jaziirada inuu weeraro jaziirada waxa u yaqaanin inta badan labadan webi ee ciraaq mare dhexdooda waa ciraaq waqooyigeeda waqooyiga ciraaq wuxuu isku dayay inuu arbiliya meeshaan iminka akraadu degan tahay arbil inuu weeraro iyo muusal waa ciraaq waqooyigeeda labada magaale ah boqorkii hurday ee annaasir lidiin ilaahi la odhan jiray waa boqorradii ugu liitay muslimiinta soo maro ka mid ahaa oo xukuma baqdaad ayaa marka kan maqlay waqooyigii ciraaq in la soo galay dawla alkhawarzimiya intii la tumayay wuu faraxsanaa waayo dawla alkhawarzimiya col bay ahaayeen ciraaq la laynaya bay ahaayeen marka isagu waa faraxsanaa haatatan baqaa soo galay waayo ciraaq waqooyigeedii buu marayaa ninkii arbiliya baa la marayaa maxay iyo muusal
wuxuu isku dayay inuu ciidamo muslimiina ururiyo uu dhawaaqay muslimiintu ha soo baxdo ciidamuu sameeyey nin ka mida saraakiishii muslimiinta ee markaa joogtay mudfuruddiin la yidhaahdo mudfuruddiin ayaa ciidankii loo dhiibay imisaa u malaynaysaan boqorkani ciidanku isu keenay boqorkii dhammaa ee ciidanka baadi doonay 800 oo nin buu soo helay bay yidhahdeen alkhilaafa alcabaasiya annaasir lidiin illah 800 ayuu soo helay 800 baa loo dhiibay mudfuruddiin oo la yidhi bal arbiil tataarka ka hortag oo 800 oo nin mudfuruddiin waxoogaagiisii ciidana buu soo kaxaystay arbiil agagaalkeedii iyo meelaheedii buu yimi wararkii baa isgaadhay inay muslimiintii soo baxday ayuu jankiskhaanna loo sheegaya ciidamadiisii alkhilaafa alcabaasiya waa magac aad u weyn oo 500 iyo dheeraad sannadood jiray hadda waxaynu joognaa maxay 618 hijriyadaan idinkan warramaya waxaanay bilaabmeen 632 hijriyaday soo bilaabmeen yacni 130 hijriyada ilaa 612 5 qarni dawlad soo jirtay weeyaan waa dawlad dunida dacladeeda gaadhay waa dawlad aqoonta dunida hoggaamin jirtay waa dawla al-uulaa bay ka tay waxay huwantay shaadh weyn oo dunidu ka cabsato laakiin ciidan 800 ay wadataa waxaa ku xisaabtamay jankiskhaan markaa in 800 iyo waxaan la sheegayaa khudca inay tahay taktiiki military inay tahay oo intan yari intay hadhow loo baqa carari doono dee fakha ciidankii weynaa ku dhici doono dabeetana wuxuu go'aansaday inuu xarbu istinsaafka leh ee aanu muwaajaho gelin alkhilaafa baa hadda taagan dee awal dawla alkhawarzamiya bay ahayd al'aan waa alkhilaafa alcabaasiya waa dawladdii muslim oo dhammi hoos tegayay arrinku si fudud wax loo geli kara maaha sidaa awgeed tataarkii waxay go'aansadeen xarbu istinsaaf ku dhufoo ka dhaqaaq iyo boob iyo kolba meel la gala iyo baqagelin iyo baabkaa in la galo laakiin aan ciidanka kan la waajihin iyo inuu sameeyo maxay axlaaf iyo itifaaqiyaat iyo heshiisyo iyo gaashaanbuur dunida inuu la soo heshiiyo gaashaanbuura soo samaysto si khilaafada markaa loogu wada diulo kadib qoladii khilaafadana ilaahay baa marka kan badbaadiyo dib baa looga noqday hamadaan iyo xaggaasuu u kacay hamadaan buu cagta sii mariyey ordaweyl magaalo la yidhaahdo cagta sii mariyey wixii uu dhankaas sii layn kara buu sii laayey ilaa iyo uu ka gaadhay magaalada tabriiz la yidhaahdo tabriiz waa hore ay yimaadeen waxay yimaadeen wakhti qabooba oo baraf ku dhacayo dabeetana ninkii boqorkii markaa haystayna wuxuu siiyey waxoogaa xoolaa iyo dhar iyo lacag iyo ballan buu la galay intoodii bay qaateen waa kuwii iska tegey waxaa haystay ozabik ibnulbalhawaan ninkaynu ku tilmaamayno oo nin khabriyo cabaa bay ku sheegaan taarikhyahanadu al'aan waa wakhti jawigu uu fiican yahay dee ballankana awalba muu aqoonin waxay isku dayeen markaa haatatan inay weerar rasmiya magaalada ku qaadaan laakiin magaaladiina way isbeddeshay intii waxaa qabsaday shamsuddiin atakraa'i nin la odhan jiray oo ay taarikhyahanadu yidhaahdaan wuxuu ahaa nin adduunkiisa iyo aakhiradiisaba fahmaya ninka kani markuu meesha qabsaday magaaladiisii uu diyaargaroobay ciidamuu samaystay waa diyaargaroobay inkastoo tataarku ciidan aad u badan iyo dawladdaa laga wada baqaya yihiin laakiin wuxuu ku tala galay dee kollayba waad dhimanaysaaye adoo sii jeeda ha dhiman meesha nimankani dee cidba dayn maayaan marka haddaad raacdana wuu ku dili haddaad dagaalantana wuu ku dili had walba waad dhimane inuu isku dayo inuu isdifaaco ayuu ku tala galay jihaad buu iclaansaday dadkii baa la xamaaso geliyey culammadii baa dhawaaqday magaalada qalcadaheedii iyo aswaartii derbiyadii ku wanaagsanaa iyo wixii baa la hagaajiyey dhufaysyadii iyo godadkaa la qotay waa loo diyaar garoobay tataarkii wayse soo taageen waxay maqleen meeshan in jihaad ka iclaansan yahay kadib waxay dhahaan raalli ahaada iska sii noolaada waa ka tallaabeen may u jeesanin waxay u kaceen magaalo kale oo ka mid ah magaalooyinkaasi meeshan ku yaallay
belqan la yidhaahdo waa iiraan magaalo ku taalla iyana ramadaan 618 bay soo galeen iyadana cagtay mariyeen ibnulahir wuxuu leeyahy kanuu yashuquuna buطuuna alxubaala wayaqtuluuna alajinna wakanuu yartakibuuna alfaaxisha maca الnisaa ثuma yaqtuluunahum wuxuu tilmaamayaa magaaladan markay qabteen ilmaha uurka ku jira xataa way dileen buu leeyahy tabriis soo jihaatamaysa markay arkeena soo dhaafeen tan yar baa la yskaga cadha burburay ilmaha uurka ku jira xataa waa dileen buu yidhi kuwa uurkale uurkay ka soo rideen ajinnada waa laayeen dumarka raggooda hortooda ay ku faraxumeeyeen kadibna waa laayeen xoolihii waa boobeen farsamadii ay yaqaaneen waa soo socdeen ganje magaalo la yidhaahday yimaadeen reer ganje laakiin iyagu sidii reer tabriis bay isdiyaariyeen jihaadkay ku tala galeen tataarkii waxay maqleen halkana jihaad baa ka iclaansan sii nabad ahaaday yidhahdeen xagga kale ka dhaafeen waa ka tallaabeen wuxuu tegey markaa xagga sare ayay u kaceen waddannadan ruushiya dhulkan muslimiinta iminka weli gumaysto dakhistaan bay galeen cagtay mariyeen shiishaan bay galeen cagtay mariyeen ruushiyay bilaabeen inay dagaalka ku sii qaadaan webigan foolgal la yidhaahdo iyo agagaarkiisa oo atractu marka ay degi jirtay galeen foolgayana cagta mariyeen dadkii deganaa sanadkaa ku xigay 619kii waxay gacanta ku dhigeen sanadkaasi markuu soo galay oo tataarku marka kan ay gacantooda ku jira dawla alkhawaarzimiya dhammaantood kazakhstan kirghistan tajikistan uzbekistan turkmanistan bakistan oo laga reebo gobolka yare karmaan la yidhaahdo afghanistan iiraan oo laga reebo xuduudda yar ee galbeed oo ay taifa alismaaciiliya degantay azerbaijan armeniya georgiya iyo ruushiya galbeedkeeda intaasay marayaan intaasay hadda gacanta ku hayaan 620 markay taariikhdu maraysay si ay u fahamtaan muslimiintani maxay u daateen raghib asarjani fi kitaabi afar xaadiثuu sheegaya uu leeyahay afartan haddaa ila fahamtaan dadkani waxay u burburayeen waa garanaysaan buu yidhi xaadiثada koowaad wuxuu leeyahay tataarku ruushiyay galeen dagaaladii ruushiya ay ku wadeen markay meel dhexe marayaan daa'ifo bulgaariyiin la yidhaahdo maaha bulgaarkan waa bulgaariyiin ruushiyana markay halkaa marayeen ayay qabaa'ilka bulgaariyiintu soo jebiyeen tataarkii markay soo jebiyeen jab aad u fool xunnaa ku dhacay waa baxru ghaswiin galbeedkeeda baa la yidhaahdaa dabeetana jabkaasi wuxuu la soo dhaafay in shiishaan iyo dakhistaan iyo azerbaijan iyo waxaasoo dhammi gacantooda ay ka soo baxaan nimankii tataarka la odhan jiray ruushiya qayb ka mida baa jab xooggan u geysatay wuxuu keenay markaa dhulkii ay qabsadeen iyo wixii oo dhammi inay burburaan oo xooggii tataarku uu gilgilmo laakiin muslimiintu marka kan maxay sameeyeen markii qolo kale u soo jebisay iyagu maxay yeeleen kow waxay dhahdaan armeniya muslimiintii boqorradii joogi jiray boqor ka mid ah ayaa ciidan diyaariyey duulimaad isagu wuxuu ku qaaday bay yidhaahdeen kurjigu waa georgia doctor raghib wuxuu leeyahay waxaan ku macnayn karaa waxa kani alxawal asiyaasi buu yidhi xawalku waxa weeyaan dadkan indhuhu xanuunku ku dhacee markaa indhuhu ay iska soo hor jeestaan yacni xagga siyaasadda buu leeyahay waxbaba arki maayaan waayo muslim qaybtiisii galbeed oo dhan bari oo dhan tataar baa haysta dawladdii tataarkana qayb ka midaa la soo jebiyey way jilicsan tahay halkuu tataarka kaga duuli lahaa ayuu qolo kristan oo kale oo meel iska joogto waddan kale oo weliba iyaguna tataarka dhibtiisa dhadhamiyo tataarku ay hore georgia horey u galeen oo mushkiladu qabsatay halkuu ama kuwan xilfi wadaag uu iska ilaalinaya la geli lahaa ama at least heshiisuu iskala geli lahaa iyaga dhaafi lahaa uu focuska saari lahaa dawladda weyn ay ishayaan ayuu intuu tataarka ka jeestu meel kale isku taagay dagaallo badan oo caalamulislaam ka socdaa noocaasay u egyihin waxa muhimkaaba arki maayo wax yaroo kalunbaaba u muuqda meel yaroo kalunbay dadkani ku wareersan yihiin oo dagaalkoodi iyo qorigoodi iyo waxooda dhan usoo jira waa xawal siyaasiya waa dadka oo aan bislaanin
aragtidooda siyaasiga aanay bislayn aan kala garanaynin maxaa see loo kala horraysiiyaa qofka khabiirka ahi ahdaaftiisu waa inay taabuur ku jirtaa waa inay kala dambeeyaan hadafkaaga ugu dambeeya ka ugu horreeya haddaad kala garan weydo waa mushkilad ninka kani wuxuu hoos imanayay boqorkii la odhan jiray al-ashraf ibnu muusa alcaadil ee jasiirada ka telinaya waqooyiga ciraaq ka telinaya buu hoos imanayay dabeetana duulimaad xaggaasuu usii qaaday idan waa xikmad darro caskariya waa ru'yo siyaasi oo qaldan labadii kooxood waa isku madheen kiristanka iyo muslimka ahaa markii naftu iskaga baxdayna heshiis baa la wada galay waana istayn ah waa goorma labaduba tataarka iska dhicin kari lahaayeen laakiin markay labadiiba naftu iskaga baxday ayay heshiis wada galeen kaasi waa dhacdada koowaada uu tilmaamaya wuxuu leeyahy dadkani say u fakerayaan baan rabaa inay la garataan dhacdada labaada uu tilmaamaya waxa weeyaan tataarku markii ay jabeen gobollada eeraan gudaheeda waxaa ka soo baxay nin cusub oo odaygii hore boqorka meesha ka ahaan jiray carruurtiisii ka mid ah jalaaludiinkii maaha waa nin khiyaasudiin la yidhaahdo oo jalaaludiinka indiya u tallaabay ay walaalayiin kaasaa wuxuu qabsaday madiinatu ray iyo isbahaan iyo meelahaasi wuxuu qabsaday koonfurta iyo galbeedka eeraan marka laga reebo khuraasaantii sare waa dawlad cusub oo samaysantay oo laakiin inanuu dhalay odaygii moxamed alkhawaarzimi uu hogaaminayo laakiin waa dawlad at least tataarka iyo khilaaf alcabaasiya dhexdooda ku jirta siduu u fakerayay annaasir lidiin ilaahigii baqdaad haystay khaliifkii cabaasigu khawaarzimiinta col bay ahaayeen wuxuu jiri wallahi waa kuwaa mar labaad soo noqday khawaarzimiintii halkuu ka fakeri lahaa tataarku 800 nin u helay qaar kaaga gudban baa alla keenay halkuu ka odhan lahaa ayuu wuxuu ka fakerayaa kooxdani hadday xoogaysato oo dawladda yaro cusubee samaysatay hadday soo xoogaysato inay khilaafadiisi khatar ku tahay aragti istraatiijiya marnaba kuma fakerin wuxuu bilaabay markaa dawladdaa yaraa cusub ee muslimkee samaysanaysa siduu u khalkhalgelin lahaa dabeetana qoraal wuxuu la sameeyey khiyaasudiinka nin u abtiya oo la ydhaha iqan taa'isi waa abtigii ruma wuxuu abti u yahay kan dawladda samaystay oo nin siyaasi oo hunguri siyaasadeed yarahayaabuu xidhiidh la sameeyey uu leeyahy meesha khalkhali ninka aan wada inqilaabno adaan rabaa inaad dawladda qabsato taageerana waan ku siinayaa meeshaasaad u khalkhalinayso khalkhali kani oo markii horeba hunguri siyaasi hayay laakiin dee yaro cabsanayay oo ninkan daba socday ayaa imka ilan khilaafadii baa usul dhabaalaysay ee wuxuu isku dayey marka inuu isna ciidamo urursado wax samaysto oo waa kano markii dambena ciidan baabuu samaystay cisyaan buu sameeyey isagii baaba muslimiintii ku bilaabay weerar oo dhulgooyo iyo qaaticu tariiqnimo iyo waxbuu bilaabay iyo muslimka boobka ila dawladdu raba inuu khalkhalgeliyeen waa nimankii tataarku ku habsaday ee imka raashiya waxoogaa alla ka keenay ay tataarka jabiyeen halka iyagu is urursan lahaayeenee tataarka la ysku wada dari lahaa ilaa iyo mongooliya lagaga celin lahaa ayaa waxaa markanba bilaabmay in iyagu is riixriixaan oo maxay dawladnimada kiina wuu ogaaday khiyaasudiinkiina ciidan buu samaystay waa la isu baxay labadii kooxood baa isku jabay kii khilaafadu taageeraysay baa la jabiyey iqaan taa'isigii laakiin waa goorma waa goor cadad tiro badan oo muslimiini dhintay kaa ciidankiisa baaqigii ka hadhayna adarabijaan bay u baxsadeen yacnii waxaan uga jeedaa tusaalahan uu soo qaadanayo inuu caddeeyo muslimiintu inay iyagu isu muuqdaane ciddan haysata iyo gaalkan kusoo duuliyo waxanba inaanay arkaynin boqor yaroo waliba inuu isleeyahy kan kugu xiga nafta ka hor qaada ama isagu ha kaa hor dhinto ama magaalo ka qabsa ama riix xaalada saddexaad uu tilmaamaya waxa weeyaan waa xaaditha ibnulahirba uu odhanayo xaadihatun ghariiba lam yuujad miluhaa buu yidhi ibnulahir baa wuxuu leeyahy waa dhacdo ghariiba oo aan iyadoo kale la arag dhacdadani maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa qoladii kurjiyiinta ahayd alkurj georgiya boqortooyadoodii baa gabadhi qabsatay kristani gabadhii boqortooyada qabsatay ayaa dabacday inay guursato dabeetana georgiya gaarkeedii waxay ka weyday
cid abnaa'i ilmuluuka ama cid ay aragtay inay u cuntamaan oo ay guursato dabeetana way diidday waxaa maqlay boqorkii aan ka soo warramayey dawla salaajiqa anadooliyiinta anadol waa turkigii qadiimka ahaa marka laga reebo istanbul iyo xaggan byzantiyiintu haysatay anadol dawla salaajiqa baa ka taagnayd salaajiqada waa dawlo islaamiya waxaa markaa madax ka ah muqiisudiin taqral shaah oo qalj arsalaankii hore ee macruufka ahaa ayaa dhalay boqorkaasi baa maqlay armeniya boqoraddeedii inay guurdoontay dabeetana uu farriin buu u diray uu leeyay waxaan rabaa inankayga inaad guursato boqoraddani christianitygeeda mutacasib bay ku ahayd waxay tidhi baahi uma qabno inaan muslima inaan guursanno baahi uma qabno wuxuu yidhi haddiiba aad aqbalaysa inaad guursato wuu kuu kiristaamoobaya haddaba boqor muslima inanku ha kiristaamoobo buu leeyahy laakiin george iyo boqoraddeeda ha guursato boqorad ha noqdo waa ogollay bay tidhi haddaad taa aqbalaysaan waxaa la soo diray ina boqor oo raba inuu diinta kiristankaa qaato si uu boqoradda u guursado george yuu yimi diinta kiristankuu galay boqoraddii baa loo guuriyey halkaasuu ku guursaday qiyaas caalamulislaami raggii ka telinayay markaa siday u fakerayaan boqorad yar oo haysata georgiya iyo mamlakaddaa yar haysata in ay guurdoon tahay buu inankiisa kiristan uga dhigayaa boqoraddani waddan bay haysataa inan yaroo muslim oo kiristaamoobay dee tiisiiba ka baxay inaan waxba ku tirinayn waa iska garanaysaa isagoo joogay umay dheg taagin waa iska tumataa naa waxaan jooji buu yidho sheekabaraleyda la bax bay ku tidhi mid addoonkiisa iyo addoomihii meesha ka shaqaynayay mid ka mida ayaaba ugu yimi oo sariirtiisii saaran dabeetana uu iska yara xanxanaajiyo wuxuu yidhi waxaan haddaad dayn weydo ma waxay ku tidhi ama sidaa ku joog ama waad arki doontaa waxaa kugu dhaca waaba iska yara cadhaysiiyey waxay tidhi ha la qabto ha la masaafuriyo meel gaaraha lagu xidho waa la kaxeeyey meel gaaraa lagu xidhay nin kalena way iska guursatay isna halkaasu ku xidhnaa waa boqorkii inankiisii reer anadoole loo diray inuu gabadha kiristankaga guursado yacni xaadisadani maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa siday maadiyiin u noqdeen dadkan muslimiinta ah iyo caqaa'idday rumaysayin inta ay tamar leeg tahay dadkaasaynu rabnaa inay markaa caalamulislaami marka kan wax ka dhiciyaan waa iska soo koobaya wakhtigu waa dhammaad baan filaya inkastoo aanan muuse waraaqdiisii weli haynin 612 markay taariikhdu maraysay waxaa dib u bilaabmay khiyaatuddiin ninkii la odhan jiray aynu ka soo warrannay ee dowladda yara cusub aasaasay mandaqada faris la yidhaahday inteeda badan buu qabsaday waxaa ku soo baxay nin kale oo sacduddiin ibnu dakla la yidhaahdo dabeetana dhexdoodii bay iska dileen dad badan baa ku kala dhintay akhiiran waxay noqotay khiyaatuddiin inuu meeshii u soo xoog badan karo sacduddiinna la yaro riixi karo warkaasi isagoo taagan oo muslimiintu saan isu laynayso ayaa tataarkiina 3,000 oo askaray faris u soo direen madiinatu rayi bay soo baabi'iyeen saawa bay soo baabi'iyeen qumtan aaraantu ay degan yihiin bay baabi'iyeen qaashaan magaalo la yidhaahday baabi'iyeen hamadaan bay soo baabi'iyeen farsamadoodii bay dib soo celiyeen waa 3,000 oo nin jankiskhaan bay u tageen iyagoo nabad qaba waayo labadii ciidana yarraa ee meesha joogay iyagaa isdilaya khiyaatuddiin iyo sacduddiin iyagaa isdilaya daa'ifo yaroo 3 kurina magaalooyinkay tirtiraysaa oo ay sii wadda 622 taariikhdu markay maraysay ayaa dib waxa u soo hambaabiray jalaaluddiinkii waadiga sindi ka tallaabay ee indiya u tallaabay indiya dawlo khawriyiin la yidhaahdo muslimiina baa degan iskumanay fiicnayn jalaaluddiinkan laakiin inuu xaggaa iska waajaha buu tataarka ka